hadda ka hor macallin ka mid ah macallimiinta Black African American ka loo yaqaano ama Afrikaanka madow ku nool wadanka Mareykanka macallin ka mid ah ayaa soo galay fasalkiisa. marka fasalka soo galitaankiisa markuu ku dhex jiray ayaa waxa ka mid ah ardayda oo wax u dhigo gabar ka mid ah ayaa waxay ka shaqaynaysaa su'aalo ama exercise loo diray shalo kale. waxyaabaha la yaabka ama soo jiidashada leh aan muuqaalkaas ku dhex arkaa waxa ka mid ah in ay jiraan arday runtii genius ah oo maskaxdoodu aad u shaqayso, sababtoo ah ardaydu isku mid ma ahan. dad waxaa jira maadooyin ku fiican. gabadhaas markaan muuqaalkeeda daawada runtii aad ayaan ula yaabay. su'aal ayuu macallinku weydiiyey xisaabtu u qoray in ay uga shaqayso homework inaysan noqon laakiin ay isla fasalka dhexdiisa uga shaqayso. xisaab ayuu qoray kadibna wuxuu saaray sabuuradda ayuu wuxuu ku qoray xisaab sidaan soo socota u dhacaysa 13 times 7 ama 13 lagu dhiftay 7. xisaabtaas ayuu u qoray oo runtii haddii la fiiriyana xisaab fudud. marka gabadhu qaabkii uga jawaabtay ayaa runtii aad ii qanciyay. waxay samaysay in ay ku dhifatay 3 in ay ku dhifatay 7 kadibna 7 ay ku dhifatay 1 sida darteed ay jawaabtii ugu soo baxday oo ay 28 uga dhigtay. marka kadib macallinkii oo markii hore isla runtii waxay maraysaa qaacida dheer si ay resultiga natiijada u hesho. wareeg dheer ay maraysaa ayay waxay uga dhigtay wax aad u gaaban. marka ma ahayn jawaab ruuxeedu aad u dheer, laakiin maskaxdiisa waxa ku jira maadaama uu yahay macallin maadooyinka ugu adag maadooyinka la dhigo xisaabta, arday dhalinyaro ah ee maskaxdoodu soo korayso baraya, isma uusan lahayn sidan dhaqsiyaha leh ee gabadhu jawaabta u helaysaa. marka kadibna wuxuu weydiiyey sababta ay u heshay natiijadaas weliba sida dhaqsiyaha leh. marka waxay ugu jawaabtay waxay qaadatay jeestadii kadibna waxay tagtay sabuuradii waxay qortay 13 jeer oo isla hal xisaaba oo ishoos taala. kadibna waxay qortay 7 min 1 oo hal ishoos taala. kadibna hoos uga xariiqday waxay isku dhifatay dhinaca midigta ah labadii saddexaad ee ugu koreysay, saddexyadii kale ee ka hoos marana way isugu dartay. sidaas ay ugu soo baxday lambar 8. kadibna waxay isku dartay 7 halaad ee gacanta bidixda ama dhanka bidixda taalay, sidaas ay ugu soo baxday 28 ama 28. ayadana waxay ka tustay dhinac kale oo fudud. sida darteed marka lagu leeyahay waxa jirta arday maskaxdoodu saaid u shaqayso oo ardada genius-ka loo yaqaan inta badan mustaqbalka markii la gaarana soo saara waxyaabaha runtii incredible-ka saaidka dadku ola yaabaan inay xisaabo waaweyn oo arrimo ku saabsan hay'ado iyo inay xaliyaan ama solution u keenaan waxyaabo aad u waaweyn, ama inay udhowduba ay soo saaraan product iyo waxyaabo wadanka nacfi u leh naftoodana iyo deegaankoodana horumar u sameynaya. marka sidaas ayay muhiimad u leedahay qofku waxa uu jecel yahay inuu ka shaqeeyo. mar walba waxa hobbigaaga ee aad jeceshahay qalbigaaga ku jira mar walba in aad qabato ayaa ka wanaagsan wax aan hobbigaaga ahayn in aad qabato. marka aad iyo aad mahadsantihiin. barnaamijka noo share gareeya, page-kana like share. aad mahadsantihiin.